dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa qorsheynaysa inay isbedel ballaaran ku sameyso u qaybsamayaasha safaarad kasta oo Soomaaliya ku leedahay wadamada caalamka sida ay noo sheegeen saraakiil ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya. xogta ayaa sidoo kale waxa ay sheegaysaa in liiska shakhsiyaadka la magacaabi doono ay ka imaanayaan dhinaca xafiiska madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. sida qorshuhu uu yahay xubnaha la magacaabayo ayaa si degdeg ah kula wareegi doona shaqooyinkooda halka kuwii horena la kala diri doono kadib markii ay dhawaan wasaaradda arrimaha dibadda ka dalbatay safaaradaha iyo qonsuliyadaha inay 2 maalmood ku soo gudbiyaan warbixin dhameystiran oo la xiriirta shaqada ee u qaybsamayaasha safaarad kasta. Farmaajo ayaa doonaya in dhammaan diblomaasiyiinta ka shaqeeya wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya uu ka dhigo shaqaalaha xafiiskiisa iyo kuwa ugu dhow ee baraha bulshada ka taageera. waa dhaqan ku cusub wasaaradda arrimaha dibadda in madaxweyne muddaxileedkiisu uu dhamaaday uu gabi ahaanba la wareego shaqaalaha safaaradaha iyo qonsuliyadaha ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa si toos ah shaqadii wasaaradda u hoosgeeyay madaxtooyada Soomaaliya sida ay sheegeen xubno ka tirsan wasaaradda. Cabdisaciid Muuse Cali oo ah wasiirka cusub ee arrimaha dibadda ayaa ah shakhsi u dhow Farmaajo ka hor inta aan xilka loo magacaabin wuxuuna ahaa agaasimaha madaxtooyada Soomaaliya. sidoo kale wuxuu soo noqday la taliyihii amniga qaranka ee ugu waqtiga dheeraa ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo intii u dhaxaysay 2017 ilaa Sebtembar 2021. si kastaba isbedelka la qorsheynayo in lagu sameeyo oo qaybsamayaasha safaarad kasta oo Soomaaliya ku leedahay wadamada caalamka ayaa noqonaya midkii ugu ballaarnaa. dhinaca kale iska horimaad u dhaxeeya ciidan ka wada tirsan kuwa Galmudug ayaa ka dhacay magaalada Matabaan iyadoona la sheegay in sababta dagaalkaasi ay tahay kastamka canshuuraha ee magaalada Matabaan. ciidamada weerarka qaaday ayaa la sheegay inay ka tirsan yihiin xoogagga nabad sugidda ee Galmudug kuwa oo dabayaaqadii bishii Oktoobar ka barbar dagaalamayay xoogagii ahlu sunna ee ciidamada dawladda iyo kuwa Galmudug dagaalka kula galay magaalada Guraceel. sargaal ka tirsan booliiska Galmudug ayaa sheegay in dowladda federaalka ee Soomaaliya ee mushaaraadka ka jaratay ciidamada weerarka qaaday waxa ay ka tirsan yihiin nabad sugidda Galmudug waxayna u badan yihiin ciidamadii Galmudug ee uu dhawaan ka barbar dagaalamayay ahlu sunna. ciidamadan ayaa ka gadoodsan mushaaraadkoodii oo dawladdu ka jaratay ayuu yiri sargaalkani. waxa kale oo uu yiri weerarkii ay xalay ku qaadeen kontaroolka wuxuu ka dhashay gaariga noo gudbiya annaga ayaa leh iyo la idin gudbin maayo. waxa uu intaasi raaciyay askari booliis ah oo lagu magacaabi jiray Liibaan Khaliif ayaa ku dhintay dagaalka 2 askari oo kalena way ku dhaawacmeen. xaaladda hadda way degan tahay ciidamadana magaalada ayay wada joogaan. magaalada Matabaan waxa ku yaala kastamka labaad ee canshuuraha ku qaado Galmudug marka laga soo tago kastamka ku yaala koonfurta magaalada Gaalkacyo.